السلام عليكم كسو دواada akhyaray channelkeena nolosha farxadeeda magacayga waa Maxamed anigana Maryam saa ogtihiin maanta waxaan rabnaa inaan video aan ka hadalno oo video dhamaantiin aad sugayseen badankiina aad sugayseen annaga xitaa aan sugaynay videogaas oo a lot of family member حتى waan sugay dad oo family member sugayn xitaa videogaas oo how we met ama aniga Maria sidee ku kulanay sidee isku baranay this is true story waa sheeko oo rasmi waa ma aan wax oo like shactiri iyo wax acting lagu daray ma aan okay so we'll tell you how we met and I hope you take something from here like inaa wax ka qaadatid aan rajayn doona insha Allah duu ilaahay raad shakalaan insha Allah so sheeka narrator ka ninka qisada zaid oo ni sheegay is going to be him because أنا بدك أنا وحكست أقول كل يا أشياء كرتها so أيضا راح شلون أسقطها okay anyway how we met سيدي أقول أنا مريم so أنت أنا كل من كهار وحنا بقى like سيدي أبلغت أنا أيضا شكله أنا سيدي أبلغت أنا كبلغ so أنا هو يدي business اللي هذا هاي business ka magaalada degan magaalo yar waa Soomaali kuma badno saadin sheegay dhowr video aan ka hadalnay Michigan ku taala magaalo yar Soomaali badan ku badneen waaye then marka hooyaday gurigeeda waxa uu imaado gabdhaha Soomaalida oo imaadaan iyo hooyooyinka dabcan gabdhaha Soomaalida marka ay hooyooyinka oo ka wada ay imaadaan business iyo waxyaalahaas iyo shaqo ganacsi waxaas lagu waxay ku sameeyaan marka qaarkood marka mar walba marka imaado anigana waxaan ahay qof oo doobaan ahay macnaa qof iskaabula ahay dhigtida ay taagan moogtaa qofkii soo galay qofkii yaa qoftaas what's going on qofta ma jirtaa mise ma jirtaa bajaq ma doob waxaa la fahmaa doob iyo dareena dili dareen waa doobka maar qofka markuu yahay single markuu yahay he has a extra sense of feelings hormonals dareen badan jir انت وحكي I thought you know ساس وتاعي I thought hormones كنا كودي hormones كوضع I mean but درين like they have a واحد يريس بدي أركان oh my god that's amazing they exaggerate واحد يريس بدي أركان because درين الدلال ولا درين الدلال موقتها سو كان درين كودي مركز قف كسي بحي oh yeah government شيء government قبتها هذيك what's going on قفتها anyway dhigtida ii taagan moogtaa doobyaalka dhanna saas waay maxay dooba scabula laga single people okay so anyway so hal magac ay u soo laabanay mar walbeed oo Maryam Maxamed Abbas wait what oo meesh ma lagu hadlaa أنا واحد في على شيء مريم محمد بس مريم محمد بس قبل سنة سؤال ويسوق جلس مكاتبنا قبل سنة كجرت عداس قبل okay مريم محمد قفت مقالة وش ده معي ذا مركز yeah anyway okay so حالها so dadka oo ayada oo dhahayaan qof fiican waa istaan dhahayaan dad oo ma ahan oo waxa jir ma arkin dad oo qof walba iska faaniyaan iyo dad ma garanaysa oo like oo dad faanin laakiin qofkii faaniyaan qof dhaafay waa okay فاهمين so dadka saafadaan like wait a second that's something else heblaay ma wax fiican qof ka sheegay qofkaas hadii heblaay qof ay wax fiican ka sheegayso macnaheedu waxa waaye qofkaas waa the best way I'm curious yaa wax fiican ii sheeg oh I'm not going to tell you I'm not going to tell you that person sheeg xaasi anyway so kadib waxa dhacday kadib magaalada joogay cabaaran meel oo fiiyo Maxamed Abbas aabeed waa qaanay macna koras kana qaanay so waxa jiray aabaheed nin ay aad isku dhaweyn saaxiib yihiin ajray anigana ninkaasan aan saaxiib ahayn sageerkaas aan saaxiib ahayn marka waxaan ku dhahay niyahow gabadha saacidaas ku jirtay what's going on wuxuu dhahay ma sha Allah gabadhaas ma aqaani قفي أقلن تقولي ما أركن عمري no ما شاء الله حنا top way okay هيا حنا you know what قبل ذن أبيت على بران داي بركوي أبيت بر مري yeah والله like you just told him ألو قال إبر أبيت بران داي no أبيت أولا جاي أبيت إن بران داي هلا هنا صار سقول ذا خافي لك هاي وحبك مو والله وحبك أوجين yeah هاي so أبيت
Marian then kadib warkii waa maxaan israacnay baaba ku dhigin sugaya baba dhegeysanaya hi baba assalaamu calaykum so aabeeda waa israacnay waxaan okay you know what aabeeda waqtigiisa fiirna then adigana waqtigaada fiirna waa iskiin keenaa iskiin baraa marka waaye insha allah okay waxaan you know what you know nin rag inaa iska dhigtad waayo haddaa gabar doonanays ma arkin oo geesaa la iska dhigaa ma fahmino yaa dadka kaleeto ma soo gambadan so waxaan you know what let me be brave you know I'm a brave guy you know wow So- you went to my dad yeah before talking to you that's amazing so then waxaan dhahay aabeedaas isbaranay maasha allah he's qof aad u fiican waay qof aad u fiican keliya ma ahan like qof dhalinyaro ee waaye ma fahmino qof waxaa waaye waxyaalaha la jiro macnihii wax walba la socdo ma fahmino qof waxaa waaye nin aad u furfuran nin aad u furfurno banooni ciyaaro macnaa dhalinyaro waaye dhalinyaro bulsho ku jira waaye ma fahmino then waa isla hadalnay okay ani asaga waxaan isla dhahnay idiima sheegaayo laakiin because waxaa idin sheeg like waxaan ku You dhahay guys- si adinka waxaa uga barataan you waxaan ku told me dhahay coffee shop maxal meesha coffee shopka isla tagteen adi baaba yeah iyo qofkii kaleeto nala socday Okay. iyo saaxiibkay meesha isku barateen meesha isku baranay then waxaan dhahay no aniga waxaa la yidhahdaa maxamed cabdullaahi qofkaasaan ahay macnihi saasaan sameeyaa current iskuolkaasaan soo dhameeyey iskuolkaan hadda ku jiraa waxaana sameeyaa intaan ka shaqeeyaa waxaan rabaa hadda iyo ogolaanaysid inaan gabadhaada isbarano oo kadibna maaragtay taleefonkeeda ay siisid then aabaheed dabcan isla markii mu isiin maryam amarka soo qaatay kadib adi finally ugu dambeyntii so anigana let me tell my story yeah maryam anigana my story and shiga so anigana I remember waxaan xasuustaa the first time oo magacaada likoli keenay waxaas ahay and baaba jaamacaddaas isi soo wadi and then on our way home baaburka intii ani isla ahayn oo isla soo soconi baaburka it was a little bit awkward sheeko maxaa la smile las isi subahay like Qosle. waa smile Dhal caddeyn aan laakiin. kasiro waxaa sheexanay maxaas isi smile gari way baabi wax ma jira baaba markii finally minka imaani parking lot markiin fadhiisani he said marin and horkomar intii degin waxaan rabaa arrinaan rabaa inaan kala hadla I was like okay clearly arrinaa ogtahay inay lahadis because maanta dhan smile iisi bihoosaa and then waxaan dhahay maxaas dhahay and wiilaa jiraa oo ku rabo and magaciisa waxaa la dhahaa maxamed cabdullaahi and wiil oo saas ah waaye magaaladanyas degan yahay and marka waxyaalaas isha sheega waa detail intuu kusha sheegay but anyway waxaas kusoo gabeeyay hadalka and waxaas rabaa numberkaada inaan siiyo oo isbaratiin numberkaada ma sii karaa and I knew the first thing I said was can I see sis okay which is okay ma arki karaa horta go and I ha sure waa arki kartaa and then telefonkiisas furi whatsappkiisas furi whatsappka masawirka u fuulo oo maxamed whatsappkiisas furi maxamedni whatsappkiisa masawir waxa u fuula masawirkiisa markaas kaasas furi asisi waa kana iyarkan and then markii masawirkiisa arkay I was like okay he's good looking okay baba numberkiisa yaa dhahay mehasna oo kaadi and then subhanallah like it was around 3:30 and then around 5 o'clock markii maghrib camal la gaari someone texts me assalamu alaikum that was the first, do you remember yeah the first message as soon as I get marka hore ka helay Yeah. text message you know what text message waa kana haya waa haya you know what let me read that text yeah message the first text message that is like it's immediately 3:30 as I minka imani parking lot baby and I gave him the approval 5 o'clock this guy is texting me and let me see what you said okay the first Yeah. text message Hadi, assalamu alaikum Maryam this is Mohammed got your number from your dad thanks for allowing me to have your number I would like to call you I'm usually off on Fridays so please inform me of what time on Friday is convenient for you thanks Assalamu alaikum yeah Soomaali waxaa waaye assalaamu calaykum Maryan magacayga waa Maxamed taleefkan waxaan ka helay aabaha ayaan ka helay waa mahadsan tahay maadaama aad numberkaada ii ogolaatay inaan haysto badankeed waxaan firaaqan leeyahay aniga jimcada iisoo sheeg waqtiga aad firaaqada adiga leedahay waqtiga ay ku fiican tahay yeah anigana waxaan dhahay wacalaykum salaam and waxaan dhahay bacd alcasr waqti fiican yahay aniga and okay miya haddii isoo text garaysid
macnaha waxaan wadi kaas ha isoo wicin aan ka wadi like isoo text gareyle and osigana waxaa isdhahay yeah sure and do you mean macnaha text me after casr or si markoy waa yaryahay okay alin igu jira maxamed okay waxaa dhahday yeah sure but do you mean text me to text you after casr and masa before I call you or after casr before I call you or in general to text you and then waxaan dhahay in general to text me I'm not comfortable talking on the phone waxaan dhahay macnaa like isoo text kareyle aniga telephone inaan ku hadlo comfortable maku ihi and then markaas waxaas dhahay and okay well I see and macnaa shixnimo miya is it because of shyness or because you're not good at social macnaa ninka inas bartas rabaa waxaas dhahay macnaa telefonka hadalkiisa macnaa shix ma yeelasa inaa ula hadashid martid masa qof social ma tihid qof social qof oo macnaa furfuran ma tihid markaas waxaan dhahay maya aniga qof social aan ahay waa furfuranahay sug Maryam because dadka badankood waxay sheegaan dadku waa furfuran tahay qofka kaliyoona soo dhaweeya Maryam waaye gurigeeda markaan tagno you know what like I said wait haddii social ahayn waxa liiga sheegay dhan waa been waaye marka waaye waxa ma ka jiraan so anigana waxaan dhahay and no I'm actually very social but I'd rather get to know you first so waxaan dhahay and aniga very social aan ahay but intii telefoon kula hadlin horta ko ina caadi text message aan rabaa macnaa la comfortable inuu ku noqdo ka bacdi aan telefoon kula hadli karaa does that make sense anyway this is the first wow I can't believe wili telefoonkiisa ku haya shimista tira maxaan ku ogahay waxaa ku dhahay kadib waxaa you got good point totally agree with you kugu raacsanahay okay so anyway after that text messagegaas kadib aniga iyo so marka waxaa dhahay okay kadib maalmo kale waa isla hadalna dhowr beri kadib aan isla text gareynay kadib waxaan dhahay you know what let's meet up let's aragno then markaas waxaan isku aragnay our first meeting wuxuu ahaa library-ga aan isku imaani and you want to talk about that day it was intense anyway first meeting waxaan isku aragnay library isku aragnay markaas soo galay library soo galay I think class ka soo baxay markaas library soo galay so marka waxaan arkay Maryam oo qof la hadlayso wiil carabi miya ma aqaan la hadlaysay markaas then partner in lab ku ahayn lab ku ahayn labka macnaheedu class la qaadanayeen so then kadib kiyar ka taga oo tagay you know what hey you know what you wanna talk maxanay waqti ma haysa hadlaan okay waa baxnay meel gooriyaan fadhiisanay markaas macnaheedu like si fiican aan u hadalnay si fiican aan u hadalnay ma idinkaga sheekeynana waxaan ka hadalnay but it was markaan arkay si u hadlayso qofka macnaheedu si u miisaaman tahay I was like okay that's amazing that's good wax liiga sheegaya run waa all so wixii aan soo maqlaayo intaasoo dhan waxaan soo maqlaayo all what I was doing waxaan dhan oo maaragtay intaa telefonka la hadlaayay intii markii ugu horeysa arkayay markaa la fadhiisanay la sheekaysanayay oo waxaan sameynaya waxaa waaye waxyaalihii oo liiga soo sheegay check so aniga waxaan dhahay like waxaa dhan laga soo sheegay 50% haddii ay check ay siiso waa fiican tahay like that's all what I want you know so 50% lama check agsi may 100% check siisay okay 50% wax laga sheegay haddii run yihiin that's a good person qofkaas qof la heli kara maaha maalintaas very intense sheegtay waa hadal caadi way weird like markaas loo fadhiisanay magacay no we didn't do that we sat together waa isla fadhiisanay runtaan ka hadalnay you know what do you want in life maxaa kartaa nolosha maxaa kartaa maxaa iga rabtaan dhahay maxaa jiriyoosaa adiga waxyaala you know real stuff alis weydiiyay like it's so that's how even marka qofka as guursanaysaan marka ugu horeeya waxa laazima waxa rasmi in laga hadlo waxyaalaha kaleeto jaceylka kaleeto iyo I love you being sweet you know gadaal ay imaadaan but laakiin this is the first time impression you know waxa ugu horeeya iska waxaynayo so marka waxaad like
what do you expect Yeah. you know maxaa nolosha ka rabtaa adiga Yeah. maxaa aaminsan tahay what's your values you know inaa maxaa macnahe dhaqankaada maxaa waaye culturekaada maxaa waaye gurigeena sidee rabtaa in u socdo waxyaala fara badan oo waxaa jira viidaan badan aan ka sameynay oo aan isweydiinaa labadeenaba Yep. So intii dhahin gurigeena horta ko waxaa dhahday I believe maalintaas waxaa kusoo arrinta kusoo koobmay you know I'm interested in you inaan life aan kula wadaagaan rabaa and marka macna like what do you think about that I think sheekada mahay su-aal ay goysa camal Yeah. at the end of the day camal macna what do you Yeah. think camal maxaa ka leedahay macna like so far ani waa ka heli camal I think like yeah let's talk camal you know like let's keep talking bro Yeah. is that what you saying I think from that day waxaan ka fahmi inaad dheheysi like this is who I am this is what I want and I'm opening up to you macna ina maxaad ka leedahay camal I think at the end of that waxaa kusoo gabagabeysi maxaa ka leedahay so I remember waxaan ku dhahay anigana I want to take time to think about this mininkan tagaa waa isu istiqaareysaha like waxaan ka hadloonaa markaas waxaan ka hadlaa aan isbarano Ha. aan wada macnihii let's Yeah. keep talking keep talking and Yeah. anigana I remember waxaan ku dhahay waa isu istiqaareysana yes yeah Yep. So istikhara was something very muhim yani I like whenever waxa I proposal I imaado like istikhara waa istikhaareysan dhaha so same sidaan u dhahay Maxamed waxaan dhahay in maxaa lahaa aw minka taga waa soo istikhaareysaha waqtiyaan rabaa inaan qaato oo kusoo fikiro and then kabacdi insha Allah we'll see mihi socdo kan insha Allah so adi intii waxaa soo dhahay caadi ninkan waa isu caadi waa text message caadi salaan hay maanta ma fiican yahay everything okay hay yes good bas laakiin jawaab ma sii heenin ani illa and then finally jawaabta maanta is imaadi I gave him a call remember how and I so wicin talaad kasla isu text garay so markii answer karun oo imaadi finally alxamdulillah oo istiqaaresti oo go-aankayga aan gaari waa wacay ninkan waa nahay telefonka marina oh my gosh marina kusoo wacuusa si camal waqti kusoo text garay hees hadda kusoo wacuusa mii qabanin waa isoo text garay waxaas dhahay arrinaan ku hadda meel very oo busy ahaan ku jiraa marin I will call you in 5 minutes as dhahay do you remember and then 5 minutes waxaan dhahay okay tartiib no don't worry and dhahay waxa kaa hooshaada tartiibka u dhameyso waqti markii faraaqa heshid call me and dhahay so I saw wacay and that night adigo 1 hour عمل بسويس كان وانا احسن يا مرنا because مرنا كسو وعدي مرنا كسو وعين الان almost 3 weeks اللي سلهت له شيكي سويا and it's texting the first time she's calling you so he gave me a call back قبصدي I'm okay with this كل وضع you know like I'm okay talking to you and what happened the rest history yeah. Then a couple months while we talked and then I saw Dante and Abis officially dadkiisa soo aadi Maxamed and yeah that's it I think my house dhamaada sheekada yeah after that nikaax waxaa sahay nikaaxayn engagement kayna waa si aragtan videogiisa and then hal sano kabacdi we got married badanaa waxay dhahaa mataqaanaa oo aabaheed ma u tegi karaa gabadha aabaheed saan waaye no haddii oo adiga haddii oo ma garanaysaa oo ishubtid waxaa tahay haddii aad ishubtid meeshaad u socotid haddaa ishubtid ii sheeg inaad ciyaar iyo sheeko iyo nacnaca kaleeta u soconin aabaheed u tegi kartaa you know oo aabeed u tegi kartaa wax dhigi kartaa hey you know what saaxiib aabeed nin waaye adiga ninaad tahay because gabadha gursanaysaa nin rag inaad noqotid waa inaad wiil noqotid maahan you know like you don't nobody wants to marry a boy you know people want to marry a man wallahi Mohammed actually to be really honest with you one of the qualities on ku jeclaadi was the fact that you first went to my dad kan oo markii on the first thing on jecel on dhahay mashallah this guy nin rag waaye is anos I arkin wili isbaranin he went to my dad adoogeesu tagi I said wow he's serious someday
So that's good. Yeah. waa khayr intaas ayaan la shargareyn rabnay videogii sugaysan video sugaysan waa I hope inaa ka hesheen I hope inaa wax ka faa'iideen marka insha Allah taala khayray intaasaan kusoo gabagabayn hadduu ilaa yiraahdo see you in another video insha Allah take care bye bye